بو عمري ولا بي ما تابو رد قار كذا واحد بدنا بيجي أقدر ريساك واي بسم الله الرحمن الرحيم شرقدونك قراها بارلمانك تبريد السوماليلاند مدنياشا قراها بارلمانك شرفت له قدوميها محكمة السراء حبناها قراها وزيرة تلياشا عيدمدا قلبك السداء مرتي شرفت شعب وينها السوماليلاند قدوميها ديد ميلا جوغان باء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كد waxa sharafi iyo xurumo in aan maanta hor imaado golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan ka jeediyo khudbadii sanadka 2020 sanad waliba waayihiisu leeyahay iyo marxaladihiisa sanadkii tagay 2019 Soomaaliland wuxuu ugu santay yahay sanad nabadeed sanad midnimo سند برواقي لها الرئيس المسيحي هي سند هرمارينات والله هذا الكيو وحكوك كوبناد وانا دور قضب كوهر رياوة دقالها أبيك برشدة نبت قريبا كدقاء لوتا ياريين ببعيدونا dhaqaalaha waxay ognahay dal waliba wuxuu ku hormaraa waa dhaqaalaha nolosha dadkooda dhaqaalaha ku xiran tahay dawlad kasta oo caalamka jirtana dadkeeda waxay ugu xilsaartay dhaqaalaha waalidku wuxuu u xilsaaran yahay carruurtiisa guriga iyo ubadka dhaqaalahooda odayga reerkuna wuxuu ka mas'uul yahay reerka uu hayo inuu meel dawlad dejiyo oo uu u sahamiyo oo xoolaha iyo deegaankaba ugu dhaqaaleeyo marka dhaqaaluhu waa hal dawlaha nolosha halbeega dhaqaalaha ee caalamku ku xisaabiyo GDP la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliland uu kordhay sanadkii 2 sano soo dhaafay 2%. marka loo eego adduunka waa meel hoose Afrika oo dhan marka la eego sumcadda qurada ka dhaxaysa ay qiimeysay dhexdhexaadkeedu uu korayo Afrika dhaqaalaheedu wuxuu koraa 3.4% waad arkaysaa Soomaaliland way ka hooseysaa sababtuna waxa weeye duruufo badan oo inoo gaara oo ay ka mid tahay inaan aynaan la xidhiidhin baanka adduunka iyo hay'adaha caalamiga ah oo aynaan wax la wadaagin in aynaan dawladaha caalamka ka qaadan karin amaah iyo wax soo idaars iyo deeq toosa oo aad ogtihiin sababta ay u xaniban tahay dagaalka ay nagu jiraan dawladda Soomaaliya waxa lagu guuleystay in sicir bararka hoos loo soo dhigo 2 sano u dambeeyay 19 laga soo bilaabay isagoo jooga maantana uu marayo 4%. dakhliga dalku wuxuu kordhay sanadkii dhaweyto marka loo eego oo daraskii la sameeyay 4.5%. shilinka Soomaaliga qiimihiisa waxa hoos loo dhigay waxa kor loo qaaday oo uu qiimihiisu kor u kacay 120 2 sano u dambeeyay waxa miisaaniyadda qaranka sanadkii tagay 2019 waxa laga maalgeliyay mashaariic qiimahoodu dhan yahay 150 bilyan 400 milyan 135,320 Soomaaliland shilinka sanadka soo aynu imika bilownay 2020 waxa laga maalgelin doonaa mashaariic horumarineed dalka oo qiimahoodu ku kacayo 158 bilyan 827 milyan 455,889 Soomaali shilinka mashaariicdana waxa laga fuliyaa gobolada oo dhan waxa la hirgeliyay nidaamka xisaabaadka dawladda ee loo yaqaano BFM
نظامك مالية وكر قاضي دونا هجاتين تيجي كر قاضي نظامك مالية دلك عشو قاضيسته كردين الدخل دلك بخامنته يكنترولك خرشاتك الدولة أول سين دونا أذيك بحنته أذيك الله بحنا على سيرة بالشدة هرجلينته مشاريع الهرمونات يكب أنت بقالها دلك جودهان دلك الصه وحصانية حضبة واحد شراء عقبضه بقالة أووي دل ولوا كأووي يقول بقالة بدل عقبض بقالة مكعبرية إن هذا وحى الهروب خعني التاجين لونا يعلن التاجين ولي وحى إنه يلا عقبض أووي أو أنه أبها هاي إن قرن كورد من سقوط قف يكوع يأقويها يكرهميها يكبد شولا qof waliba uu aqliga ku qaado inuu ka mid yahay dhibaatada dhaqaale dalka inuu wax ka qabto oo ugu yaraan la fihiisa isagu sidoo isu maamulo ku xiriir dhaqaalaha dalka walaalayaal waxa uu haydal ay aad ka fog yihiin waxa uu soo dejiyo iyo waxa uu dhoofiyo sanadkii 2019 waxaanu soo dejinay badeecad qiimaheedu yahay 527 milyan 713 سجال بقول يتضباط دولار شن بقول يلا بيتضباط مليون أو دولار ده أشوفه أي رصيد وبدأ يقاط واحد يقول لما بقول يكوب يتوان مليون تضباط بقول لبي يستكون سداد بقول يلا بيكون مليون فرق النوع حياة واحد يدفع يوحد سويب سني صدح بقول إيه اللحظة مليون سجال بقول يكوب يستكون إيه بقول يستيد يتوان دولار بل أوفر سوا حلوانو لفيش كأنه كنت روح يقول في النية واحد سود السنة وصدح بقول إيه اللحظة مليون قاد كأنه أنت صرت كبدو في نواش هم بقول له أنا صرت في عناية إلى صقع لعقت هذا فيش كأ أنت عليك المسألة المستعد خلاصي وحكبا إلى أن الكجادة قرب شو قبيل كيسودرا يديالك أول سنة يندلك وديدك وديدك قربان شو ذا إيوه هاي أذاه إن وش قيال عقد قرار أي نسوقريه هذا سألوا بحرو خسارها واحد سود تشيلنا يا واحد بفينا كلا كربديه لما أنت واحد واجه إنا دقل كله حق بدله واحد من هاي أمة فقراء أو هذانا وحن أفق قالوا هذا هذانا استهلاك وحول خرج رئيسه أو حرقنا وحرقته ولي رد هو بدناه هذين ما أنت لو تنظر السوق شلون لو تنكبوا بيه وحكور مرة الرياض كقاعد بالوجه سأيكور مرة مركا ولا يلترى وحن أسوقاتي إلى أمد فهمته بيقبحه كل شيء نقالهن dadka qurbaha jooga lacagta ay soo dirayaan dadkii waaweynaa ee dadka xidhiidhaya way say gabaabsi duruufiyaha adduunka uu isbedelaya dhalinyaradii tagtay ee halka ku dhalatay iyagii baa xaasiyay waa xaaladu way siyaad ma fiicnaanayo hadeena wax ka bilaabkan u dhaqmo saad uga baxnataa dadaal badan baa la sameeyay inay warshado yar abuuro oo iyagoo dhibaatadooda leh oo markuu ninkii warshad soo iibinayo assurance-kii iyo LC-gii wax badan ay ka cadiban yihiin dawladdu waxay ku tala gashay inay caawiso xukuumad ahaan waxaanu sanadkan ku caawinay warshadaha iyo qalabka ay soo dejiyaan 15 milyan oo dollar oo cashuur dhaaf ah si ay ugu hagalaan wax soo saarka beeruhu sanadkan aad buu u wanaagsanaa ilaahay ma hadii roob badan baynu helay nimca ilaahay dadkuna waa dadaaleen waxa 24 saacadood loo qaybiyay qoysas danyar ah 14 oo qoys si ay saacado u xoqotaan gobolada oo dhan waxa loo qaybiyay dad kale beerleyda la waraabiyo ee beer roobaadka ahayd ee beeraha biyaha dooxa iyo ku dhadhow 4750 mitir oo tuubooyina oo ay kaga soo baxaan biyaha marka dooxii beer ijaarkii mid u dhawaado kii labaad kii saddexaad waa inaan tuubada dheereena si aan beeraha u badino waxaana loo qaybiyay qoysas gaaraya dhowr iyo 14 qoys waxa la bareejiyay oo dawladdu bixisay 7 cagaf
oo la siiyey magaalooyinka beerato iyo oo togdheer iyo daadbareeras waxaa beeraha sanadkan soo go'ay dalag aan filayna inuu ku filaado ugu yaraan bil ama laba dalkeena haddii si fiican loo isticmaalo waxa cudurro kala duwan laga tallaalay 3 milyan oo neef oo xoolo ah waxaana ka qayb qaatay 38 kooxood oo ah kuwa xoolaha caafimaadka xoolaha qaabilsan waxa la daweeyey malyan iyo badh neef oo isugu jira ari geel lo iyo fardo waxa calafka xoolaha loo qaybiyey lagu naaxiyo loo qaybiyey 19,550 qoys waxay xukuumaddu soo iibisay 4 doonyood oo la doonayo in lagu tababaro dadka si ay uga faa'iideystaan khayraadka badda kaabayaasha dhaqaaluhu sida wadooyinka dekedaha iyo garoomada diyaaraduhu waxay qayb weyn ka yihiin horumarka dalka waxa si xawli u socda balaarintii iyo casriyeyntii dekeda berbera waxaana dhammaaday wajigii hore 43%. waxa la dhisay oo hadda la bilaabay dhismaheedii oo ilaa 7% gaaraya berbera corridor wadada isku xidhaysa berbera iyo xadka Itoobiya wajaale waxa dhawaan la bilaabay doonaa dhismaha wadadii ka leexanaysay Hargeysa marka berbera laga soo baxo si culayska gawaarida waaweyn magaalada aanay u ciriiriyeen oo 22 kiiloomitir ah waxa dowladda Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtu ku heshiiyeen in madaarka berbera oo ka Afrika ka weyn 4 kiiloomitir iyo 500 oo dhisan in garoonkaasi uu noqdo mid madeynaya oo baacimisterka ka qayb qaata oo diyaaradaha caalamka isaga goosha wadada Burco Ceergaabo waxa dhamaaday 201 kiiloomitir 94 dowladii hore dhistay inta kale 107 kiiloomitir laba sano dhammaad dhis waxa la dhisay 449 kiiloomitir oo kamid ah wadada isku xidha Hargeysa Kalabay waxa dhamaaday bridge-ka isku xidha Amuud iyo magaalada Boorame waxa dayactir balaaran lagu sameeyay jidka isku xidha Laascaanood iyo Tuulo Samakaab iyo Ari Cadays waxa dayactir lagu sameeyay bridge-ka labaad ee magaalada Burco waxa la wadaa mashruuc casri ah oo lagu xakameynayo xawaaraha gaadiidka shirarka gaadiidka oo inagu batay awgood sanadkii u dambeeyay 19 waxa shil baabuur ku dhintay 274 qof iyadoo oo laga duulayo muhiimadda oo daryeelka iyo kor u qaadida adeega caafimaadka u leeyahay bulshada dawladdu waxay xoog saartay sidii ay dadweynaha u heli lahaayeen adeegyo caafimaad oo tayo leh waxa mudnaanta gaar ah la siiyay adeegyada caafimaad ee qaybaha bulshada ugu nugul sida xarumaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka waxa si rasmi ah xarumaha caafimaadka dawliga ah looga shaqaaleysiiyay 512 xirfadlayaal caafimaad waxa tababar loo furay aqoon kororsi ah 3,100 xirfadlayaal caafimaadka ah si kor loogu qaado aqoontooda iyo hufnaanta caafimaadka waxa isbitaalada xanaanooyinka iyo ruuxa caafimaadka lagu daaweeyay 526,273 waxa markii ugu horeysay ilaahay mahadii lagu qalay 10 caruur oo wadnaha wax ka qabay oo lagu guuleystay dhamaantood qalinkoodii iyo dawladuna dhamaan kharashaadkii caruurta ay qaaday waxa la hirgeliyay 22 xarumood oo adeega caafimaadka ah oo lagu kordhiyay dhismayaashii hore ee jiray mudanayaal iyo marwooy waxbarashadu waa furaha horumarka waana iftiinka nolosha iyadoo taalaga duulay xukuumaddu waxa ay hirgelisay kulliyadda tababarka macallimiinta
waxaan daraasadda ku eegnay markii aanu darisnay in maanta cusbitaallo badan oo caafimaad ku adeegana aynu leenahay waxbarashaduna ta dowladda ta gaarkaba iskuulladu fara badan yihiin laakiin loo baahan yahay la gaaray waktigii tayada caafimaadka iyo tayada waxbaridda iyo waxyaalaha daruuriga sida cuntada oo kale dhammaantood tayadooda la hubin lahaa ayaynu gaadhay marba marxaladeen marayna mar dugsiba lama hayna waxa lagu fadhiisanayay qasacado geed baa loo fadhiyay mar yaa iskuulaha la dhisay mar meel carruurta la gaarsiiyay mar caafimaad lama haynin mar wuxuuna la soo dejiyahay laakiin waxaan u aragnaa in la gaaray waqtigii tayada aqoonta iyo caafimaadka iyo cuntada la sixir lahaa la gaaray la ilaalin lahaa sidaa daraaddeed waxaan kulliyadii macallimiinta 400 oo ugu horreeyayna waa la qaatay waxa deeq waxbarasho loo diray 450 arday waxa bishii Febraayo sanadkan si rasmi ah u bilaabmay arday kasta oo dhigta dugsiga hoose dhexe in la gaarsiiyo buugaagtii waxbarashada ee sanadkii hore intii aanu qaybinay hore mooyee sanadkan waxa la qaybiyay 100,000 oo buug oo la gaarsiiyay dhammaan daafaha dalka iyo gobollada oo dhan waxaana ka faa'iideystay arday gaaraysa 153,000 iyo 770 waxa la shaqaaleysiiyay 400 oo macallin oo cusub oo la geeyay dugsiyada ku yaala gobollada fogfog waxa dhacda dugsiyada waxa loo dhisaa baahi badan baa jirta in magaalo walba loo dhiso dugsi magaalooyinkana way bateen oo meel walba magaalo laga sameeyay oo waxay rabtaa magaalooyin isu jira 10 kilomitir ama kala yar marka magaalo walba soo degay carruur baa joogta carruurtaasina iskuul baa baahatay dhaqaalaheena kolba inta ma wada gaaro marka hay-ado ama qurba jooga ayaa dugsiga dhisa marka dugsiga la dhisa dawladda waxa ku waajibay in macallimiinta gaarsiiso taasoo ka xoog weyn xawliga iskuulada koraya xawliga dhaqaalaheena yahay hase yeeshee sanadkan waxaan mushaara loo qaaday 400 oo macallin oo si mutadawacnimo ama tabarruc ah wuxuu bari jiray ardayda waxa la dhisay sanadkan 200 iyo hal fasal oo cusub oo lagu kordhiyay 102 dugsi oo ku kala yaala gobollada Awdal Togdheer Sanaag Sool iyo Saaxil mudanayaal iyo marwooyin waynu ognahay dalkeena biyuhu waa ku yar yihiin magaalooyinka badankoodu waa haraadan yihiin marka roobku raago reemiga waxa ku dhacday dhibaato biyo la'aaneed diyaar garow waynu baahanay biyaha ah waxa la qoday 2 sano u dambeeyay 2 ceel oo dhaadheer berigii horena 160 ka badan baa dawladdii kulmiye iga horreysay ee siyaay hogaaminaya qoday waxa la dayactiray 66 ceel oo kuwa dhaadheer waxa la dhameeyay sahmintoodii oo hadda la qoday 33 ceel oo kuwa dhaadheer waxa la qoday 8 dam ama baliye waaweyna xafiir la yiraahdo waxa la dayactiray 12 dam oo la dhowr qaad waxa la qoday 153 barkadood oo cusub waxaana la dayactiray 203 barkadood oo hore u jiray dhammaan gobollada oo dhan waxa biyo balaarin laga hirgeliyay magaalooyinka Hargeysa Burco Berbera Ceergaabo iyo Boorama waxa saamintooda lagu jira biyaha laascaanood waxa meel fiican maraya oo lagu diirsado maraya biyo balaarinta magaalada Hargeysa biyo soo saar iyo biyo qaybo mashruuca soo qaabilsanaa ay nagu caawiyeen hay'aduhu 66 milyan baa ku baxay dhowr sano socdaa uu raagay eeda marihina qolada maamulaysa laakiin biyo soo saarkii 80% baa dhamaaday imika biyo balaarintiina 30% bay maraysaa si aynu biyo balaarinta magaalada u fududeyno oo u dheereyno maalin walba halkii qasbada la gelinayay nin baa oraya aniga loo dhismaayo waqtigeena la dhisa halkii qasbada la dhigay ee la soo mariyay oo mid ka dul dhisay guri ama dawladdu hoosana way maqlaysaa wasaaradda arrimaha gudaha joogtaa waxay u baahan tahay arrintaasi in wax laga qabto la yaab ma leh meeyarka iyo barasaabkii dakhliga dadka leen maayaan wararkan waa qasabada martay ee ka baro hadii qofka garan waayay maalmo buuq iyo xarig iyo darshad galbeyn waxaan soo jeedinayaa inuu dadku taa iska baraarujiyo oo meelihii danta caamka ah wadadii iyo halka biyuhu marayay iyo halka leerka la marin lahaa dadku ay maqlaan dawladda ila maalmo aysan maynee marka qofka la isku dhacana waa buuq kala soo kordhay odayga xildhibaanka waxa loo cararaya wada la xildhibaan leeyahay marka waxaan leenahay arrintaasi waa nolosheenii ka hawlgal
شقاء أبوك بل يريدن إنك سوينو تدالي أو نقالة سميني أو شقاء قرن أبوك هذانا إنت بضان وشقاء وانا دبات أدوك جرته إنك رجارها إنه هيشطه iyadoo afriba sabool watahay sabool ay watahay oo ay la qabno saboolnimada dadka hadana waxa inoo dhor go'aanka ay naga go'doomiyay in la xiriirno hay'adaha caalamiga saadarteed waxaanu bilownay in dhalinyarada ay isugu geeyeen labada gacmoodba qaranka oo dhan dawlad iyo dadweyne iyo ganacsato si shaqo loogu abuuri lahaa waan inuu abuuri karno haddii isku tashano oo dhaqaale aynu ugu sameeyno warshado iyo hawl mashruucyada ku hawlgalaa waan sameyn karnaa ganacsiga waxa soo jeedaya in mashaariic waaweyn maalgeliyaan wadada isku xidha burciyo oo duwan lacag badan ma baahna ganacsiga ma shirkadaha kamid ah maalgeliya way karayaan wuxuu ku qaadan karaa waxa la yiraahdo tool inuu dhigto dariiqa laga dhiso custom waqti go'an loo qabto oo xooliska soo bixi karo 25 sano 20 sano inta ku soo baxay inta la isla eego intaas oo kula dhalinyaro shaqo ka helay iyo mashaariic waaweyn oo kala lamid ah la abuuri karaa dhaqaalaha waa وإسكاشة هي أمراض إلى المال كأن جلنا ضلك أنا أباهناها ترى واحد كل حرته هو جامين الدولة دو أردن حكومة دو كتاعي قرياشة سعدتي سنة لما كيهين محكمة له وأنا كي جنعصاه وكل هذا خدي حقيسة أمل عكيسة مركز جرائم محكمات وجيسة هلا يو صح حسب حرتي ترى وان كان كراه إنه بسكوت من هذا موجود أن يكسر كلمة شغلة أنت بريء لنوفي واحد أبو ري صندوق آخر مريض هذا الرياضة أو إلا يسوق جيال العد دولة عسكرة عدينا عاوريسا صندوق قاسوح نقولها صندوق الرياضة هل أول خلال لقى ما هي العد أي سوء ريال أو أدل صار لهي أو أكو حدين يا دراسة أو أكو حدين يا كاظمية إنك نك سابان العكرة بانك لياب ماي وحبيريا يسوي ورقة وقف هذول عكس يسويه إنه وحي يسويه محكمة قول إيران إذا هذا قف العكس سوء عليه أو أنا أنقرنا أيوة أمر قال له أما هو إيش وشيء يكون كان بقول كذا سجاش شدت قارتي يوم قررنا إذن هذا أما نك العكس رأينا يرى هذا جو أقول أبي شو هذا كله أما أبي كله زي تكرر العكس قال معي مركز كذا كان مشقي وادلبي إنه برمي ده هنا وسوته waxaan soo saaray xeerkii sanduuqa lagu abuuriyay waxa kale oo ku soo dhigaalkii ugu horeeyay oo $200,000 golayaasha waxaan abiir soo jeedinaya inay ka hawlgalaan si sanduuqa loo kobcin lahaa dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa amniga dalka ilaahay mahadi sanadkan ilaahay nabad buu nasiib amni buu nasiib ilaahay baa ku mahadnay talabaad mahad labaad waxa la shacbiga dhammaantood وحلا أمانته يا مهدق قرياش ورجع لك شو ركب أنا هذه نبضن يا مال بدن يا بلا بدن أيكم مقنعيه نبضيته شقاقين كقولة كذا عبر يا قلبه ويري هين حلوانا أما وزيره أما عيدنا أو أوي أما صد شيء لبت شير أبيحن نبضين يا أرض يا وريك يا جد فين أو إن لا درت أو إن لا قاطي هذا يهم الحلقات هذه هاي علمه هذه جنعسته إلهي ما هذه موافقة سفرت أيين كده منه وحلا في الشقاقة هاي دم ذكر ما تضرب إلى ضرب قول ولا أمره وحكوا سجن حدودها ذلك لما أنتم وعلماء قلب كسيا كوجا ذاميه لما هو إلى أن عد سودا فين إيجانا ووجا ما هذا غيرنا قارك حلك أذجع وحيان waxaan u rajaynaynaa in ilaahay ka abaal mariyo dhibta ay hayaan dhammaan ciidamada qalabka sida oo aanay dheef u dhigata ka helin laakiin dalskooda aan nafta u hureen ciidamada amniga kuwa wardoonka kuwa badda kuwa xabsiyada haya maxaabiista oo kuwa ugu badana iyo qolo leedahay booliiska oo iyagu maalin iyo habeen dagaal ka bixin 24 saacadood ninka booliiska ka buu gashay shacabka waxaan ka codsanayaa golayaasha iyo shacabweynaha waxaan ka codsanayaa in ay la shaqeeyaan oo dhibta ka qaadaan ciidamada booliiska iyo gurmadka joogtada ah iyo dagaalkan bilaa macnaha ama xaafadaha islaaye ama reeraha islaaye
أما تقول هاي إسرائيل البوليس كإلى أطلون هوش بركة قاضي إلا هذيك كلوه نقدر أمانة بالوالبن البوليس أمر عن ولا يقول في نبر بقى حبض يسقى أول نبض يلا ولا بخلق قبنا بالوالب خاصنا هو لبعض أي كريان قبله وحنت على هنا اللي بيسوي شيء عدس قرياش يد دوينها أرنتها إن لقى في هذا ولا شيء إنه الأمر وحكى له خاص بعي دنبيدي كبر شري مجالوينك اللي يرد سمين شرين بقول كيبا سجاد يلبسه تا إلهي مهدي يضنا إسوتك كبر عيل ليسوي تجي علمه كان عصته ددوينه ما حرقمت يبريس كبا ما أنت أنا مجالوينك إنه بقول كيبا تضبط كل واحد بكأن ناسيه سيدا يتوان بلوتكم هاي لما أنتوا إذا ما قلب كسوة ما هذا قلنا هوسة وأنا هدي قرن وأنا